wiilkaaneytood hooyadiis aabihiis qaatibilay ka taagnaayeen way u adkeysan waayeen ma hayn karin waxay sameeyeen markuu weynaaday bay waxay geeyeen oo 10 iyo xoogaa sano gaaray bay waxay geeyeen boarding school ingiriiska magaciisa waxaa la dhahaa mark markii la geeyay iskuulka maado kastaba aad iyo aad ugu xumaa ilaa hal maado dhaqaalaha businessku aad ugu ficnaa mar kastaba wuxuu keeni jiray number 1 maclimadiis heer la yaabtay buu wuxuu ka dhaadhiciyay maskax weyn ay wiilka saarneed asoo ilmo ah wuxuu ka dhaadhiciyay in uu maxaa la dhahaa oo lacagta suuqa oo lacagta lagu kala gadgadiyo stock marketka suuqa ay dhahaan inuu lacagta u gelin doono ay wada gashan doonaan 15,000 oo farheeda dhag ka siistay oo kala baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saxbadayseetii ma fiican tihiin waxa waaye waxaan rabaa sheeko kalena maanta la wadaago ingiriiska ah intaan sheekada bilaabin adoo aad u mahadsan subscribe-ka isaar jazakallahu khayr marka ninkan marka yiraahdo macalimada qofka ugu horeysa wuxuu ahaa oo dhaco macalimadiis iyadoo indhada soo taagan 15,000 iyadoo raali farta ka saartay ildabana ma sii saarin hore uu sii dhaqaajiyey yuu ku xijiyey aabihiis iyo hooyadiis ku xijiyey wuxuu ka qaatay dad shaqaystaanay ahaayeen oo insurance company qabaan oo xoogaa lacag haystaan wiilkii markuu aabihiis iyo hooyadiis kasoo dhacay golden carkii oo aan limitka lahayn oo la iska isticmaali karo iska furan wuxuu yimaaday hoteelada ugu waaweyn oo London Savoy Harrods meelahaasuu imaaday uu ku baashaalay ilmihii saaxiibadiisa soo wacday way u imaadeen wuxuu ijaartay diyaarad oo private jet jaraadahan yar oo dadka taajiriinta ijaartaan uu soo ijaartay intuu u socdaa waa marka wuxuu u socdaa inuu ku soo wareego Europe Switzerland uu ka bilaabay Paris uu ku xijiyay wuxuu haddana sii aaday Tenerife meel la dhahayo oo island ku taalo Spain ku taalo oo dadka taajiriinta un tagaan ninkii wuu soo wareegay adduunyada soo dhamaystay markuu heerkaas marayay ninkii baa waxaa dhacday in la ogaaday oo maxaa la dhahaa reerkii way fahmeen kaarka inuu qaatay oo wax suubiyey kadib weli soo iskoolka dhiganayo buu wuxuu suubiyey wuxuu isticmaalayaa reerkooda iyo magacooda uu isticmaalayaa iyo nambarada odaga haysto oo wax lagu gadan karo ama lagu xadi karo guri 1 milyan joogo buu bangiga ka dhadhacsiiyey inuu ka qaato wuu soo gatay reerkii ogaadeen in uu maxaa la dhahaa oo wiilkooda heerkaas maroojo oo saas noloshooda u baabi'inayo maxay sameeyeen marka waxay sameeyeen booliiskii ogaceen arrin faraha ka baxday adduun dhan waa dhiiqooday lacag tiro badan lagu soo dalacay reerkii problemkiisa waxay ogaadeen inuunan maxaa la dhahaa ninkaan inta usii joojinaynin oo adduunyasii qasaayo oo heer oo guri milyan soo gato lacagtaas saas u dhanne dad caadi ma haystaan waa la soo baxay ninka booliiska loo wacay booliiska la geeyey waa la xiray 4 sano ajal lagu sii daayay waalidkiisii saas buu businesskoodii iyo lacagtoodii u baabi'iyey marka la xiray wiilka weli 16 sano muuna dhamaysanin waxaa lagu xiray jeelka oo dadka da'da yar oo soo kale inta lagu xiray marka meesha markii la geeyey hooyadu waxay tiri maanan u tagin haddii aan u tagno waxaan ka baqaynaa inuu wuxuu ugu noo geysto dhan oo ay ku soo dhacaan uu isdilo wiilkeena marka waxaan sameynaa tiri ma u tagayno marka waxa loo soo sheegay waxa ay u maleynaysay inuu wiilkeeda sameyn rabay oo laga celiyay oo ku nool yahay daawo oo valium la dhahayo oo lagu seexiyo dadka markasta waa la qaboojiyaa waa la seexiyaa markuu ogolaaday oo noloshiisa ay ka dhaadhacday waxaan uu sameyn oo ku jiro hadeertaan inay lifekiisa tahay ciyaalkii oo la xirnaa asoo kale intad ahaa baa waxay siiyeen respect gooni siiyeen markay ogaadeen jeel marka la aado interview la iska qaadaa maxaa soo qabatay maxaa samaysay markay ogaadeen oo u sheegay oo wiilkan yaroo 16 sano aan gaarin oo sameeyey maxaa la dhahaa ficilkaas kusoo kacay oo lacag macluumaad ka qaatay private jet cidiisa oo ka baabi'iyay reerkiisa soo baabi'iyay lacagtooda oo intaas wadan ilmaha iskoolka geeyay salaana loo taagay waxaa la dhahay adiga waxaa tahay ninkii maxaa la dhahaa laga dambeeyey projectadaada waa mid nagu soconayso dadka meesha joogaan waa sidoo kale inta ku ciyaal sidoo kale dad oo yaryar oo saas oo kale waay marka ninka wuxuu helay meesha inuu ku fikiro oo maxaa la dhahaa oo waxyaalo badan uu kusii suubiyo marka ninka markaas wuxuu jiray 16 markuu 17 jiray waa laga soo saaray kadib warkiisa mala maqlin hadda waxaa bilaabanayso asigiyo weynaaday iyo wuxuu sameyn jiray
wuxuu sameeyey markuu weynaaday wuxuu soo qoray maqaal dheer oo qoray oo meel kusoo qoray oo dhahayo ilmo yaraan ahaa waxa aan sameynayay waxa ma aqoonin waxaa laygula kacay qof weyn sidii loola dhaqmi lahayo kale laygula dhaqmay laakiin ilmo yaraan ahaayo ma aanan helin xanaanadii ilmihii yar heli lahaayeen oo maxaa la dhahaa oo aan ku noolaa lahaa nafteeda waa la baabi'iyey dacwo buu usoo jeestay ninkii inuu dacwo u qabsado systemka inuu dacwo u qabsado soo jeestay in noloshiisa la baabi'iyey oo yahay nin laga gardaran yahay oo wuxuu sameynayna aanan ogeyn yacni sheekada ninkan waxaa waaye narsistic weynaado waaye oo isbabeddelaya saas isku roga maalinba wuxuu la soo baxaa weji cusub 4 sano horta koo markii oo la xiraayay lagu xiray wuu dacwooday 4 sano waa loo soo jaro labaa loogu dhigay markii la soo daayay kadib London u yimid xoogaa aamusay meelmuhu taagnaa 5 sano wuu tartiibinayay wuxuu ka shaqayn jiray maxaa la administration oo ahaa xafiisoo ka shaqayn jiray kadib muxuu sameeyey wuu guursaday 2 cunug uu dhalay markuu guursaday meesha guurka ma kala joogay oo foomka la buuxinayay meesha ku qori lahaa shaqadeeda waa administration aan qabtaa xafiiskaan fadhiya albaabkiisa dadka fadhiyaan ahay number weyn oo samaystay wuxuu yiri aniga waxaan ahay lawyer oo ku qortay inuu yahay been meesha koo ka bilaabo wuxuu bilaabay marka inuu iska aamuso oo si tartiib u socdo oo waxbana haleynin wuxuu fiirsanayay targetka oo kusoo bixi rabo targetka dambe uu ka rabo inuu kusoo baxo wuu raadinayay si tartiib noloshu watay wuu gaatamay ninkii siduu gurigiisa iyo ilmihiisa iskaga dhex jiray shaqadii yareedna u haystay laakiin wuxuu ku maqnaa inuu balaan sawsado inuu maxaa la dhahaa duumo cusub soo dejiyo inuu projecto cusub keeno sidoo gurigiisa u joogay maalin loo soo jabsaday marka wuu soo baxay wuxuu imaaday ingiriiska meel xaafad oo magaalada ka baxsan oo dad yaro taajiriin degan oo nolol yaro la iswada yaqaane buu yimid markuu meesha imaaday dadka meesha joogay iyo markuu meelaha coffee kacbaa ka sheekeysanaya dadka wuxuu ugu sheekeeyey inuu rabo inuu gato airport meesha ku yaalo private oo aan la isticmaalin inuu gato inuu rabo diyaarado yaryar oo antique inuu meesha ku xareysto inuu rabo airport ahaan loo isticmaalayo wuxuu isticmaalaa airportka diyaaradaha lagu xareeyo oo hadhowta futureka markay diyaaradaha sii duqoobaan ee noqonayaan antique noqonayaan lacag fiican ay noqonayaan dadka waxaas ugu sheegay businessman weyn inuu yahay oo lacag haysto si fiican u soo labistay waa nin qurux badan oo kala arag ah adi maalin soo socdo wuxuu helay dukaan oo helay oo dhar lagu iibiyo naag dhaxaada joogta meesha albaabka ka furtay markay soo dhaweysay sidoo uu hadlaayay iyo soo iska dhigay iyo dharka dhan isku jimay waaba ka heshay ninkan wala sheekaystay xoogaa oo wuxuu ka dhadhacsiiyay wuxuu maxaa la dhahaa uu raba iyo kulli uu ka dhadhacsiiyay iyo businessman inuu yahay u sheegay naagta ninka markay aragto waaba ka heshabo markuu baxay arrimihiisa dhamaystay taleefon dhab ku siisay taleefonkeedii ay farta ka saartay waxay tiri maxaa la dhahaa ninkii waaba iska heleenbo way isra raaceen maalin wuxuu yiri sabax ku wadayaa baawrku ku soo qaaday wuxuu geeyay airportkii oo been dadka u sheegi jiray asi xataa waa ka dhadhacday beentii airportkii oo geeyay wuxuu yiri airportkaana rabaa inaa gato oo waxaas aan ku sameeyo adigoo ninka daagto waaba ka dartay waxyaalo wuxuu ugu sheekeynaa ebedkeed aan maqlin ninkii waa la waayay markii la waayay bay waxay tiri maalmaha kamid ah haddana iisoo noqday kiioo gacanta u duuban tahayo u malays gacanta inay kasoo jabtay markaasaa waxaa weydiiyey tiri sida wuxuu jiraa maxaa gacanta kaaga dhacay inteesa ka baxday wuxuu yiri waxaan aadayo yiri aniga haddaan runta kuu sheego sug horta gurigana geli gudahana geli runta inaan kuu sheegaan rabaa runta haddaan kuu sheego aniga qof waxaan ahayo yiri noloshiisa secretive ah oo maxaa la dhahaa u shaqeeyo dowladda oo usoo fiiriyo waxyaalaha oo ku saabsan politikada ku saabsan iyo meelaha dagaal ka socdaan iyo waxyaalaha la qarinayo inaan soo ogaado waay marka dadka inay ogaadaan maha sirtaas adiga unbaan kugu qarsanaya saas uu sheegay haye marka gacanta maxaa kaaga dhacay gacanta waxaa iga dhaco yiri waxaan u dhoofay oo la ii diray inaan suuriya aan aado dagaalka suuriya ka socdo inaan soo qiimeeyo dadka suuriyaanka waxay hayaan inaan soo qiimeeyo baa la ii diray marka xabad yaraa jaf gacanta ii dhaaftay yani beenta si weynta hele marka way soo dhaweysay way soo galeen gudaha soo galeen way sheekaysteen way balamisay maalinta kale balamisay markay ka balamisay guri ku balamisay wuxuu dhahayeen waxay tiri ikraal ahaa yiri meesha daashku aada banaanka taleefon oo gale buuq oo gale tiri idan jikada ku jirta ka qabanaysaa
darshaday ka arkaysaa buuq oo gale warkiis waa maqlahay tiri wuxuu dhahayo laakiinse wixii oo loo sheegaya ma ogi ada buuq markuu bariyey gudaha soo gala waxaa dhahay maxaa ku dhacay problem baa jiro wuxuu yiri maya waxaan iska dhaaf anaa xalinayo iska ilo waa qodqoday tiri warkiisa qodqoday warkiisa daba galay marka warkiisa daba galay waxaa isoo baxday tiri ninki in cash flow hada ka maqan yahay lacagtiis inuu ku jiro suuqa ee lacagtiis ka wada maqan tahay oo loo baahan yahay degdeg lacag cash flow loo baahan yahay hadeertan oo 26,000 pound ah in loo baahan yahay ayadana waxay tiri guri aan lahaayaan iibiyay tiri jafaan dhaa bangiga tagay 26,000 usoo bixiyay tiri fartaan ka saaray ninkii maalinta aan 26,000 aan gacanta ka saaray tiri wixii ka dambeysay waxaa u malaysaa tiri tubo inuu igu xirtay oo ka sii siibanayo lacagti kaleeto aan hay bangiga u jirtay inuu iga qaadanayo war hore iga qaad sidoo ninkii ii waday oo maalin uu leeyahay waa jiranahayo maxaa la dhahaa madaxa kansar iga galay asoo duuduuban oo imaanaa madaxa isbitaalkaas ku jira kii dowladda waa meelo soo geli kartid maxaa la dhahaa maxaa ka shaqeeya xafiiska oo MI6 ka shaqeeya adina imaan karta taa maal soo galaya oo gambadha garaaca xitaa waa arkay tiri waa daba gale wuxuu iga qaatay tiri total balance uu sheegay oo marba been ii ujeedinay bangigayga wixii ku jira lacag wuu tirtirtay tiri 750,000 aan guri ku iibsaday aan haystay tiri aan iska iibiyay lacagti aan haystay nolosheeda dhan gacanta ku dhigay tiri jaf ninkii waa la waayay iyo dhul meelo agtiisa dhigay waa la waayay ninkii intaas oo naagtaaniytood oo ku ciyaaraya maskaxdeeda lacagteedan oo dhacayay meel dheerba ma degneenba xaafadda ay joogaan fillo weyn oo qaali ah oo dhinac ka degan buu dhinac ka ijaarta oo taajiriinta ah meeshooda ku dhex jiraa asiga iyo naag kale oo Spanish oo aroosay oo iyadan ilmo dhashay meesha ku jiraan Maria naag la dhahay la joogtaba meesha ku xariisan yihiin abay helayna meeshaan waxay taagan tahay waa la dhacay booliis u sii socotaa u sii carre lacagta dhan waa laga dhameystay qalbiga waa laga jibiyay waana laga dhuntay meel dheerna ma la jiro xaafadda leeba lala degan yahay bano waxaa dhacday naagtii markuu dhibkaas weyn ku dhacay waxay samaysay inay raadiso wax yaqaano iyo wax raadinayo waxay soo bisday marka nin private ah bay la xiriirtay oo detective u soo raadiyay wuxuu soo helay ninka meeshuu ku dambeeyay u soo helay ninka wuxuu noqday xaafadda inuu dhinac ka degan yahay markii la ogaaday meesha inuu joogo haddana wuu fakaday wuxuu aaday Spain oo aaday luqad Spanish ko si fiican u yaqaanay naag Spanish haddana oo aroosay ilmo ka dhalay meeshii tagay meeshii business ka bilaabay office yaro meesha ka furtay office-ka lacagta lagu furaayay naagta shaqaalaha ah buu 4,000 ka qaado ku ijaaray haddana markii laga daba yimid oo la soo socdo buu wuxuu sameeyay uu ogaaday habeen 6 saac asii xaaskiisa cilmihiisa soo qaatay haddana Italy u sii guuray si aan loo qaban oo caga u dhigan meeshuu tagaba qofku arka wuu dhaca ha yaraat ha badnaato lacag ay u taasiga booliisku ka daba tagay waa la soo waayay haddana wuu baxay Portugal oo aaday dadkii private oo detective ka raadinayay ninka lacag badan oo ku dhuftay waa la raadinayo qof kasta qof u dirsaday waxa dhacday in Portugal loogu daba tagay oo haddana laga soo heli waayay ninkan intuu socdo meelaha oo magaalada maraayo qof allaala qofka ka hor imaado nin iyo naag kulli waa dhaca lacagtu ka dhaca wuxuu sheegaa wax alaal iyo waxay rabaan uu sheegayaa markuu u sheego sida wax yeelnahayn uu sheegaa lacagta ayaga u shubaayaan oo siinayaan nin wuxuu ahaa oo luqad aad ugu fiican oo wiji fiican leh oo si fiican u labistay hordii uu soo sheegay marka waxaa dhacay Portugal inta la raadinay oo booliiska dhan is aruursaday oo private ka ahaa oo meel kasta loo fariisto la raadinayo ninka tartiib oo meel soo dhuntay markasta wajigiisa soo bedela tartiib oo soo dhuntay wuxuu aaday Switzerland asii xaaskiisii ilmihii yaraa la socday waxaa dhacay marka in oo maxaa la dhahaa booliiskii ugu daba imaaday asigoo masquul ku jiro xaaskiis albaabka loo soo garaacay oo la dhahay hebel aabe masquusha ku jira ay tiri waa laga soo saaray waa la soo qabtay 12 baan Switzerland dhexdeeda lagu hayay oo sharciga Switzerland lagu qaaday kadib Ingiriiska laga soo dajiyay maxkamada la saaray abukaatihiisa iyo wixiisa markuu qabsaday waxa la taliyay inuu dhaho guilty aan ahay si sanooyinka ugu soo yaraadaan guilty ah ayuu dhahay ninkii waxaan waa sameeyay dhahay waxyaalaha qaarkood badanaa waa sameeyay yiri waxyaalaha qaarkoodna wuu diiday 5 sano iyo 8 bilood bis lagu soo xiray dad noocan jiro oo ummadda Ilaahay dhiigooda cabaan oo lacagtooda iyo noloshooda wax alaal waxay istaa inay ka furtaan meesha reemaan ay ka dhacaan Yurubna waxaas way ku badan tahay zaid ku badan tahay marka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh